dhakhtarkii Hindiga ahaa ee daaweynayay guuxaya ayaa u sheegay 38 saacadood kadib in naftu daynayso haddii uusan helin wax gurmad ah oo degdeg ah. Waa kan guuxaya oo ooynaya ummadda Soomaaliyeedna gurmad ka dalbanaya. Dhakhtarku waqtigan uu dul taagan yahay waxa uu u sheegayaa 38 saacadood kadib haddii si degdeg ah aan loo gaarsiinin halka iyo Turkiga in naftu ay day doonto. balse adiga islaamnimadaada iyo sidoo kale alla ku xirnaashahaaga haddii aad ugu duceydo guuxaye waxa laga yaabaa inuu ka istaago meesha dib dambana aad u aragto gabadhii jacaylku kala dhixeeyay ee halkan idinkaga muuqata ayaa ku tiri bartaada oo haddii aad xanuunsatay aniga miya ku doonaya qaar kale oo TikTok ay saaxiibo ka ahaayeen waxa ay dhaheen qabiil hebel haddii uusan ahayn wax gurmad ah ama wax caawinaad ah oo ma fidin karno subxaanallah. guuxaye 3 milyan ayuu ka haystay barta TikTok balse dadkii reer TikTok ahay oo dhan inaysan garab istaagin ayay u muuqataa. gabadhii ay dad isugu dhawaayeen oo ay dunida isku jeclaayeen ama jacaylkiisa ahayd ayaa ku tiri haddii aad xanuunsatay oo xaaladaasi halista ahayd ama cudurkaasi uu kugu dhacay isma naqaana ee bartaada Soomaaliya ayay ku raaxaysanaysaa balse asagoo Hindiya ayuu isbitaal dhex jiifaa isagoo oo ilmeynaya dawladda Soomaaliya ma laga yaabaa saacadahaasi inay ku gaarto guuxaye isla markaana diyaarad degdeg ah ay u dalabto si uu isla markiiba uga dago Turkiga. Please videogan hadii uu soo gaaro walaal ii share garay waxay u share gareysaa madaxweynaha. halkan waxaan kala hadlayaa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Mudan Xashan Sheekh Maxamuud madaxweyne Janaaya Hindi maade ilaa ay maanta wax xanuunsanahay xanuun baan dareemayaa. madaxweyne waxa u baahanahay visa oo Europe u baahanahay visa Europe Talyaani iyo Jarmal wuxuu rabaa haado siiba Jarmal aan rabaa hadda heli kartid madaxweyne visa rabaa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed madaxweyne waxa rabaa muwaadin Soomaaliyeed ahay wiil Soomaaliyeed ahay madaxweyne waxa ka codsanayaa ina viisahaas isiisid haddii aad awoodid. madaxweyne muuqaalkan dhalinyaro ina ii sheeg gareeya dhalinyartan waxa ka codsanaa dhalinyaro waxaan iga codsanaa inta muuqayga iyo maqalkayga taqaano inay muuqaalkan ii sheeg gareyso xanuunka inuu ii sii siyaado maalin yeeraano عرب حتى هذا وإحنا نمر بايق صباح ما قانا وحياه مرك حالتي مرك دبيسوي كسي دريسا إن حوا أسك السعودة أنا 9 سنة حنوصنا مدحويني معلن ده مدهن أنا حنوصنا أسك السعودي ولا تعالى إنه الشيء إن أنت أسوي سمر كرا أسوي سمري حدنا فرنتي وكسو جالسي مدحويني madaxweyne waxa ka codsanaa inaa BCC wallahi aniga horta ilaaha wax kasta awoodo waa samreeyaa intii awoodo waa samra horna u samraadna waa samray laakiin codsigayga insha Allah ina ay jawaabto waa rajaynayaa insha Allah madaxweyne visa u baahanahay please muwaadin Soomaaliyeed ahay wiil Soomaaliyeed ahay muuqaalkan ii share gareeya madaxweynaha uu share gareeya. guuxaye xanuunka uu caawa dareemayo waa mid aad la seexateen isla markaana aad ula wadwali lahayd balse walaalka kula dhashay oo kale ka soo qaad guuxayana fariintan u gudbi si dawladda Soomaaliya ay u gaarto fariintan isla markaana ay uga soo jawaabaan sababtoo ah dawladda Soomaaliya oo kali ah ayaa ka jawaabi karta isla markaana gurmad degdeg ah gaarsiin karta ninkan taasi oo looga rabo in dawladda Hindiya ay la hadasho isla markaana ay dhahdo diyaarad degdeg ah oo qaas ah isla markaana Turkiga u socoto hal la saaro wiilka yarka ee xanuunsan sidaas degdegan ah ay lacagta u bixido halkaana guuxaye Ilaahay iyo naftiisa lagu badbaadiyo. dhakhtarkan oo raahay la yiraahdo ayaa sheegay in ninkani 38 saacadood kadib ay naftu day doonto haddii uusan helin gurmad degdeg ah. أو تيك توك أو صاحبتي اسمها قرب استاجان أياد سويدينيسا بلسه قاركوت سيدان أيد هين. إن كان ما أقام إله بيقول لنا نقول حتى ولي بروفيل قسم الدعوة نندر وايدها كلا شيكي وها إله بيقول لنا قبيله حتى أبقى كي أقول كان قبيلة كلا يقانا نيجي أقول وكي حتى أبقى الماء ولا يبلا طلع هنا أقول
هذا نكان قرب كجباهي داور الصومالي طاي قرب كجباهي إلهي وحنا وحكى الضن يقول احتر إن شاء الله وأوها اللي أبقى لا أقرب شدنا أقرب شيء هو سنجلي بقى ورا دور سنجلي على ده رجول ليه ورا دور سنجلي هاي حاجة ديك بيلي رجول ليه والسنجلي حاجة واعينتان أمو جسالي هي يداني وحسن ويا أحمد عبد الله أمويه أمو تطلص كاسيه ولي قف معاي مسكين ولي قف معاي جسالم يا دو جسالي تطلص وهي جمله هدو قلي إندي محرف إياه الجدود إيو رجول ليه وحلا قبط هدو جسالي إيو أحمد عبد الله إياه تطلص وهي جمله أبروي مركها qofka meeshan idin kaga muuqdo qof kale ma ahan waa walaalkayga guuxaaye saaxiibkeena nin mar walba waxyaabo aan ku qosolnay inoo soo gudbin jiray xanuun ayaa haayo isbitaalkii waa laga soo saaray waxa la dalkii hooyo waxba looga ma qaban karo waliba xanuunkan waa ula noolaaya la dhahay sida la sheegay raashin u gaar ah ayuu mar walba cuni jiray laakiin annaga nooma soo gudbin jirin haddana waxaa la sheegay raashinkii yaraay oo asaga si gaar ah loo siin jiray in loo imaaday raashinkii uu cuni waayay waa uu xanuunsaday kadibna isbitaal ayaa la geeyay markuu soo dhacay kadib isbitaalkiina waxay dhaheen dhaqaatiirta inta badan Soomaaliya joogto waxba looga ma qaban karo dalkii Soomaaliya la dhahay in dibadahaas loo qaado way ama in diimaanahaas in la geeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad ha ugu bedelo xanuunka ilaaha keen ilaahana qaadi karo 40 qofood hadii ay duceyso ducadooda ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu aqbalaa anaga ma naqaano cidii ducadeeda la aqbalay iyo cidii kale laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa qalbiyada qulubta dadka daalacdo ilaahay waxaan u baryeena ugu baryeena caafimaad sariixa ah inta dhimatay Allah u naxariisto inta noolna ilaahay subhanahu wa ta'ala cimri dheer caafimaad cibaado suuban hasiyo inta xanuunsanna Allah caafiyo hadii asxaabteeda aad kamid tahay ama team babajay waxaan ka codsanayaa in hal duco aad u duceysid mar walba salaada aad dukatid aad dhahdid ilaahay subhanahu wa ta'ala xanuunka ka dulqaado walaalkeena guuxaaye nin mar walba farxad la qaybsado ayuu ahaa waliba asagoo bukaan socod ah oo xanuunkiisa qarinayay ayuu haddana qosol iyo baashaal iyo kaftan iyo qaraaxo noo soo gudbin jiray aniga maanta ka hor ma ogaanin wallahi billaah tallahi maanta ayaan maqlay in uu xanuunkan la noolaa oo in muddo ah uu qarsanayay usan cid bini aadan u sheegay raashin asaga u gaar ah oo cuni jiray xataa xafladaha iyo meelaha uu tago wax laga cuno ma cuni jirina allahay waa uu qarsanayay waa adkeysanayay waa geesinimo qayb kamid ah ilaahay inuu keeno ogyahay ilaahayna uu qaadi karo laakiin hadda waa uu soo dhacay dhaqaatiirtana waxay dhaheen dalka waxba looga qaban karo waxaan ka codsanayaa walaalkayga qaaliga muslimka oo inaad hal duco aad u duceysan aniga u duceynayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka dulqaado caafimaad sariixan Allah ugu bedelo xanuunka waa hal mar